maayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe oo maanta si gaar ah ugu warramay magaalada Berbera telefishinka Saab ayaa waxa uu ka hadlay halka uu marayo barnaamijka dib-u-nashqadeynta magaalada Boorama ee Master Planka taasi oo halkaasi ay ka wado wasaaradda hawlaha guud oo kaashanaysa dowladda hoose ee degmadaasi. Maayirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dadka inta badan ka cawda barnaamijkaas ee uu ku beegmay jagooyinkoodii, waxaana uu sheegay marka uu barnaamijkaasi dhammaado inay wax badan iska bedeli doonaan bilicda magaalada Boorama. run ahaantii hawshan ay wado wasaaradda hawlaha guud liid bay ka tahay iyada hogaaminaysa, laakiin waa hawl ay ka wada shaqaynayaan dowladda hoose iyo hawlaha guud. roolka fulintana waxa iskale hawlaha guud. magaalo markaynu ka hadlayno waxa loo baahan yahay in qorshuhu uu ka horeeyo magaalanimada, laakiin haddii magaaladu ay ka horeyso qorshaha waxay keenaysaa in magaaladii oo dhisan la isku dayo in dib loo qorsheeyo. marka taasina waxay keenaysaa inay waxyaabo fara badan oo qaldanaad la saxo. waxaan samaynaynaa ama aan ku dadaalnay khasaarihii ugu yaraa sidii uu dhici lahaa magaaladuna ay u noqon lahayd magaalo qorshaysan. waayo haddii aynaan hawsha maanta ay qabanayso hawlaha guud ee aanu annaguna qaybta ka nahay aan la qaban, berri toole waxaa adkaanaysa sida wax looga qabto. 10 sano ka hor haddii la qaban lahaa may timaadeen dadka jagooyinka ay kaga dhacday. waxaa ilaahay mahadiya in guryaha ay ku dhacaysa ay kooban yihiin, guryahaasina qaranka waxa uga taalla go'aamadaas bay mari doonaan. ma nihin magaaladii ugu horeysay, waa magaaladii shanaad ee laga fuliyo Somaliland Master Planka. jagooyinka ay ku dhacdayna wax u kordha mooyaane wax kaga yaraanaya ma jiraan. dadka qaar way dhici kartaa inay culaysi ka soo gaadhaan oo qof hanti yar hayay oo jago geliyay ay kaga dhacdo, laakiin inta badan ganacsatada iyo dadka jagooyinka ka dhigtay baananka ayay kaga dhacaysaa. waxaan rajaynaynaa quruxda iyo bilicda iyo horumarka iyo jidadka wanaagsan ee laga filayo inay yeelato degmada Boorama inaanay ku iman karin inaan la fulinin hawsha Master Planka. waxaan rajaynayaa dhibta yar ee kooban ee imika la arkayo dheefta badan baa ka dambaysa. dadkana waxaan uga baahannahay inay dul qaataan oo ay u samraan. ma nihin cid wax ka burburinaysa, laakiin waxaan nahay cid wax u hagaajinaysa. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay arkaan faa'iidada ay leedahay Master Planku. maayirka degmada Boorama ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay shir magaalada Berbera uga socda maayirada degmooyinka dalka iyo sidoo kale agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qaarkood. waxaan ku suganahay magaalo xeebeedda Berbera oo markii ugu horeysay muddaxileeda kayga 5 bilood aan joogo aan ku imaado. kulankan aan u joogno Berbera waa kulan ay isugu yimaadeen 11 maayar oo dalka iyo ilaa 6 agaasime guud oo wasaaradaha ay khusayso mashaariicdan maamul daadejinta. waa kulan dalka iyo degmooyinka aan matalnaba kulli muhiim u ah. waxyaabo badan baana lagu falanqeeyaa oo lagaga wada hadlaa. waxa kamid ah maamul daadejinta bulshada cidda u dhow waxa weeyaan waa dawladaha hoose. sida halhayska ahna dawladda hoose waa hooyada, halka ay dawladda dhexana tahay aabaha. xigashadaas oo Cabdishakuur Cidin u lahaa. waxaan rajaynayaa in falanqeynta iyo kulankan uu joogna uu yahay mid la iskaga wareysanayo maxaa qabsoomay muddadii ay shaqaynayeen maamul daadejintu, maxaan qabsoomin, maxaa qaldamay, sidee wax loo sixi karaa. marka waa kulan managerial level degmo ahaan iyo degmooyin kale waxaan la qabnaa dhaqaalahaas waa dhaqaalaha aan ummadda uga mas'uulka nahay inaan ugu fulino adeegyada. marka laga tago cashuuraha dawladaha hoose ay urursadaan ama degmada Boorama ay urursato, waxa qaybka cashuurta ay dawladda dhexe u qaato dawladaha hoose. taasi oo sida ay noo soo gaadho iyo cadadkana soo gaadha iyo adeegyadii lagu qabtay iyo sida loo arki karo saameyn badanna bulshada ku yeelanaya, horumarka wax ka qaadanaya. waayo adeegana laga filayo inaan bulshada u qabanaa waxa weeyaan kaan u egmanahay ay ka mid tahay inay hesho Boorama wadooyin wanaagsan, ay ka mid tahay caafimaad wanaagsan, ay ka mid tahay waxbarasho, ay ka mid tahay horumarka aan hiigsanayna haddii la hayra. marka dhaqaalihii hawsha lagu fulin lahaa qayb ka mid ah ayaan halkan u joognaa sidii loo heli lahaa. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera.